maalo barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya qaar ka mid ah suugaaleyda ugu magaca dheer ee reer Somaliland oo aan kula kulmay magaaladan Hargeysa maanta waxaanu sir dul taagaynaa ereygan qabyaalad mawduuca oo muddooyinkan dambe aad moodo in iyaduna hanqalka la soo kacday dadkuna aad u hadal hayo xaqata aniga dhowr erey ba sharax baan uga baahdaa had iyo jeer marka qabyaalada laga hadlayo ereyga qabyaalad horta in la qeexo wuxuu yahay waayo dhaqankii hore Soomaalida erey leehda qabyaalada kuma jirin waxa jiray oo aad moodo in halkiisii dhaxashay erey la oran jiray tolimo oo mahmaha iyo gabayada iyo hadaad aad u akhrido wax badan aad nin tollihi waa xarigijiiti nin waalan tolkiba u miyir qaba tol waa waad niman yahow tolimo waa dugsiga dunida jeedaasha waxa soo dhan tolimada laga hadlay tolimadu marka miyiga la joogo waxay ahayd iskaashi yani nolosha oo la isku tiirsanaado inteeda badan boqolkiiba 90 faa'iido yahay waayo qofka caydhooba xoolaha la siin jiray qofka aan xoolo u irmaanayn xoolo maala la siin jiray ninka xoolaha laga qaado wala la soo dhicin jiray ninka guursada wala kaalin jiray yani waxay ahayd nolol isku tiirsan marka tolima la oran jiray taa waxa kale oo jiray ereyada kale la isticmaali jiray reernimo oo iyaduna jirtay xigaalnimo jirtay gacal baa jiray xidid baa jiray ereyadii af Soomaaliga hore ee qadiimka ahaa dhaqankeena ku jiray kuwaas ay ahaayeen qabyaalad waxa ugu dhawaa ereyga la yiraahdo qabiili ninka hebel waa qabiili oo amaan bay ahay amaan yay ahaydo ninka hebel waa qabiili mar hadii la yahay waa nin reerka wax ugu filan oo goobna ka dagaalamaya golana aftahanaho wax taraya meel kasta waxay yiraahdaan Soomaalidu nin baa reerka magac wacan u soo hooyin kara magac xun u soo hooyin kara waxa kale ku mahmaay jireen hadal qabiil isku og yahay qof ma oran waayo waa mahmaay Soomaalida marka qabiilku nin baa isagoo qolo u gabeeyay wuxuu waa niman qabiiliya asaan qalab lahayn reer marka qabiilguna amaan buu ahaan jiray xiliya dambe oo magaala galkan iyo waxaan soo xoogaysanayay ayaa ereygan qabyaaladu ina soo galay oo waliba caya oo ninka hebel waxa la oranayaa waa qabiilaysti oo la isku duraya xagga islaamkana shariicadu waa tal tacaarufu bayna leeyihiin isku aqoonsada leeyihiin saana sabadu u lumin marka qabyaalad hadii marka sidan dadku ay u leeyihiin baa inuu qaadano waa jamhuuriyad waa nidaam dhan oo dhisan waa habkii ummaddu ku nooleed dhaqanka ahaa imka qof kasto hadla wuxuu qoray qabyaaladu waa xunta marka waxaan raadaaday qabyaaladu inta soo xafiis iyo laamood bay leedahay bal meesha xun ereyba berigii hore Soomaalidu hal meel bay cadaaladda aad isaga ilaalin jirtay waa halka qabyaaladu la oran karo way ka soo gashaa waxa weeye waxa la yiraahdo eexda marka garta la qaadayo inaan cid loo eexan dabeetana waa kuwii ku mahmaahay ilaahow aqoon darana hanagu cadaabi eexna hanaga gatag qoladii kacaanku ayaa iyaguna erey ku yar daray waxay yiraahdeen eex iyo qaraabakiil bayna ku dareen ereygaas ku soo dareen halka bahashu u dhimanaysa loo socdana waa halka qabyaaladu waxay ka mid tahay xaqiiqatan dhaqanada ugu liita ee bulsho wanaagsan baabiin kara xataa haddii isku af isku dhaqan isku diiniya deegaan yihiin waana waxa ugu badan ee dadkeen iska wacyi geliyaan haddana ku dhaqmaan imika meel baynu ka hadlanaay waraysi baad iga qaadasaa qabyaalad baynu ka hadlanaa ama qofku maqaaxiya ka hadla ama social media ka hadla ama TV ka hadla wuxuu ku oranaya war baashaas way xuntii naga daaya haddana kama badna marka dadkeeni badankoodu waxay noqdeen qof xanuunsanaya oo xanuunkii hayay qof kale ka daweynaya isna isdaweynaya isdiifinaya markasta oo cabsalaan oo sharcigu sareeyo qabyaalada iyo adeegsigeedu wuu shaqaa markasta oo sharcigu daciifana qabyaalada iyo adeegsigeedu ama ku dhaqankeedu wuu xoogeystaa taasina waxay ku tusaysaa in qabyaalada iyo sharci darradu mataana yihiin siday caajiska iyo fakhriga mataana u yihiin inta horta maxay ahaydee Soomaalidu noolayd ee dadku gabayeen abwaanadu inta wacyi gelin ayuu bay sheegayeen maantana waa la sheegaa dadkuna waqtigan
haddaad gabay fiican oo qabyaalada tiriso wax ka badan taankiyo هاي oo dhaafsiisan ma jirto uu ku sheegayaa inuu gabaygu fiican yahay haddana halkiibu ka miisaya maalin dhaweyd waxaan sameeyay heesta la yidhaha hankaagu ha dhaaf reer hebel kadibna nin aan saaxiibanahay oo Axmed Cusmaan Batuun la yidhaha baa ila soo hadlay wuxuu yiri war xasan war niyo hees wanaagsan baad samaysay oo tiiban kule markaas uu yidhi hankaagu ha dhaaf laakiin sidaa inaad tiraahdo ma ahayne waxa la lahayd hantida kaliya la heli karayay hugii dadka iyo hubkii weeye halkaynu u dhaaf reer hebel ma garato هاي Absalaam waxaad aragtaa dad badan oo ku faanaya laandheeranahay oo laabta garaacaya waradeer kuma faani kartid waxba laabta ismadoobay inaad laandheeran noqoto ma shaqaa qabatayba horta bise waxa dooratay waxaad ku faani kartaa dad moofayar samaysay maqaaxi samaysay adoo dad wuxuu soo biirisay soo kordhisay waad ku faani kartaa iminka dhararkayga waxba kama bedeli karo kuma faani karo waayo ma doore sidaan dhararkayga ugu faani karin ayaana reerkan ka soo jeedo iyo qabiilkaygana ku faani karin mana jiro qabiil ka fiican iyo qof ka fiican baa jira wadaga fiicnaan kartaa dhaqan ahaan asluub ahaan aqoon ahaan dhinac walba laakiin waxa laga yaabaa inaan adiga qabiil fiicnaan farihiinuna ma sinna bismillaahir rahmaanir rahiim midhaha qabyaaladu waa burbur waa qax waa curada dhinta waa xurugowda iyo ooriye asaydu ku raagto Soomaalidu waxay ahayd dad xoolo dhaqataa oo qab weyn oo madax adag oo inta badan aanu macno badan dagaal ku lahayn wuxuu ku bilaami jiray dagaalku wax aad iyo aad u fudud waxa la isku dilayaana ma aha shayga waxa weeyaan dadka isu muuqda oo waa qabka tusaale ahaan qabaal baa la jabiyey qabaalkii waxa u dhintay dad badan taariikhdan u galay waxa laga yaabaa koor uu ilmo yari ka furtay hal in la isku dilo waxa dhici jirtay baradhi uu ilmo yari mid kale ka qaado in la isku dili jiray waxa dhici jirtay laba awr oo la isku diray in dagaal ka qarxi jiray wiil dhangadeeyay ayaa mararka qaarkood dagaalku ka qarxi jiray waxa la isku diray ceelka iyo cawska dadkana haday si siman u qaybsadaan way ku filan lahayd laakiin waa qabka waxa la isla jiiraya marka qab dhaafay bay laba qabiil qaranku weydaaye qardoofo iyo niman qaadan baa qaci ka yeedhaawuu ninkii gabiye waxa loo degi jiray degmo marra waxa la oran jiray beel marra waxa la oran jiray bulsho imaka ereyga bulsho ka soo haray oo la adeegsada ereyga bulsho uu ka duwanaa kuwa kale bulsho waa dad meel wada degayo kala nolol ah mid baa dameer wata mid baa iyaro riyaa wata mid baa geel boqol halaada wata mid baa gawaadhi iyo wax wata waa dad isu soo galo kala wada jaacda ayaa bariga hore loo oran jiray halka bulsho taala degmaduna waa in isku beelaho de xoolaheed iyo waxeed iyo iyadu wada bulshaduna waa dad ama duruuf ama dan isu keentay oo kala wada jaacda oo halka dameer baa ka ciyayo halka orgi baa ka ciyayo oo halka kala wada jaacda salon jeer war bulsho taala meesha bulsho waa ereygan imka la qaatay aan u qaadano bulshada iyo sida marka bulshadaas bay la doonayaan la sameeyo laakiin qabyaaladu ma ogolaan bulshadu samaysanto oo xeerarka qabyaalada waxa kamid ah qofku wax kasto wacan inuu reerkooda la doono ninka gabya ugu wanaagsan reerkiinu aha ninka ugu geysana reerkiinu dadka kalena waa inaad durtaa oo yeestaa oo xaqirtaa waa xeerarka qabyaalada marka qabyaalada loo rogayo waa dhaqankeeda marka dadka ugu weyn ku sii dhacdayna inagu bilaash weyn u hadlaynaa waa dadkan la qoqoba ee guurkii loo diiday ee haybsooca lagu sheego culeyskeeda dadku ku dhacayna waa dadka marka dhowr tusaalaan soo qaadanaya oo xagga suugaanta ah taa hore sayid maxamed cabdullaah xasan iyo qabaan bulxan iyo ragga hore qabyaalada suugaantooda kuma arag xiliyadan dambe aan sheegay magaalo galku xoogaystay malaa waa wixii afartanaadkii laga soo bilaabo
ayaa ereygan qabyaaladu soo xoogaystay laba nin baan soo qaadaya oo labaduba si wacan uga hadlay oo bahasha dadka aad ugala hadlay nin waa xaaji aadan axmed xasan ilaahay labadooda ha u naxariistay xaaji aadan afqalo ninna waa ninkii la odhan jiray cabdulaahi suldaan timacadde labadaa ninba si wacan ayaa ugala hadleen xaajigu markaasuu gabay mari gabaygaa wuxuu leeyahay qabyaaladii baa hadlaysa qabyaaladii buu ka hadlinaya wuxuu yidhi waxaan ahay qabiilkii akhiray reer Afriqiya yacni dib u dhigay abaaraha iyo colaaduhu ana ila rafiiqaan waxa hadlaysa qabyaaladii oo soo bandhigaysa waxqabadkeeda abaarta iyo gaajada yaan u hel wadaagnaaye waxay dhalay ibliis iyo jin iyo odaya shaydaan aji iyo sab aniga ka dhigay walaala ah awood waxaan u leeyahay khilaaf inaan abuura in intaan u kala qaybiyo la isafgaran waayo awlaxa iyo marka la isla dhaco ololka maadhiinka ay qaar naftu ka alwataan ana fabaanaaye ayaa hebel lahaayey oo waxaan ku istareexaaye alla jabay halkii laga yidhi baan agabta geysta wuxuu sawirayaa qabyaaladda iyo sida ay timacadde dhowr baydoo wanaagsan buu isaguna leeyahay mar wuxuu yidhi nin qabyaalad heensaynaya guul ma haybsado marna wuxuu yidhi baydkii kale caanka ahaayee dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaan anuguse labadaa baydba waxaan ka jeclahay qabyaalad iyo jeeroo la noco qaadkan lagu waashay qasti jeeray wada yeelato qowlka ku heshiiso qabya weeye soomaaliyey qayradaadani mashaakilkii labadaa erey buu ku ururiyey qabyaalad iyo qaad waxay yidhahdaan soomaalidu had iyo jeer wallaahi maantay taaganta 60 sano 70 sano 80 sano ka hor yaa laga yaabaa gabaygaa tiri markaas qaar waxa ku oranayaan maantay taaganta de waxay u taagantahay halkii baanad ka dhaqaaqin halkii uu maalintii ka hadlayay ayaa noloshaadii weli taaganta laana maxay laga yaabaa Yurub oo kale ama Mareykan oo kale de 50 sano 60 sano ka hor halkii taagnaayeen in badan ka guureen laakiin anagu halkii baan weli taagan timacadana sidaa ayuu u dhigay anna tuduc baan ku darsaday barigii nabadaynta aan ku jiray meelihii tog dheer iyo meelaha isku laayay shirarkii nabadaynta ayaa de qabaa'il baa la suleynay dagaalada qabaa'il bay ku salaysnaa marka tuduc baan ku daro waxaan yidhi habarta hooriga xigaal kala horaan qaadka kala hadafka heeriga isbiday haybisugufaanka hagafyada u liitiya intuu badow habaynayo ay qola hinaasiga ku tahay heegan diriireedka ay hamasha toodhaha afxumo hagar le baanayso habkii nolosha loo higsan jiray weli ma haysaan wuxuu horumarkii ku jiraa nabad la haybshaa malahay hanaanka ilahayd gacal u soo heeye adeerow hubkaasun ka dhiga waa hirgelaysaa markii aad ii sheegtay in barnaamij aad iga qabanayso waxa jiray quraan wadood igu dul qabatay ma xafidsan laakiin waa ku akhrin karaa kuwii horena waa badan yihiin oo qorraxda dhalataa qisooyin dhasho taariikh qortaa xaqiiqda qirtoo qabyadu noloshay ka qayb tahayo dunida qaxarka qareen laaho haddaad qani tahay in baa qubanoo haddaad qunu taal in baa qaxayso haddii qulqulkaa biyuhu qotomaan in baan kula qabin nimcada qaaro qoriga wax diliya qaraxya ku dhintay haddaad qaldanay haddana qumanay bulshay quusay haddana qastilaay qorin isku mid ah afkiya qowlkoo qaadirku ku abuuray meel quro oo sasun kala qaba qumaatitiin ugu qoomiyado dunida quwadla afkaar kala qaba dastuurna qortee kursiga ha qabsada qabiilkaanahay nabadda ha u qomin qanaad ku tee waxa kamid ah intay qolo u qaybsan yihiin qabiilka intay qadarinu hayaan intay qarfajaan u sii qaxayaan intay qalqalooc qumani badayaan dasuugaanta qabyaaladdan ka tiriyaad bay fara badan yihiin laakiin imika waxa laga yaabaa in 500 oo heesood leeyahay dadku waxay weydiiyeen horteebaad jecesha wartaan mar kasta ta ugu dambeysay marka dabka saar ayuu man jecelahay waxaan taa uga socdaa markii aad igu wargelisay xaleed ila soo hadashay inaad barnaamij qabyaaladda ku saabsan duubasooda iga qabanayso waxa maskaxdayda ku soo dhacday war kuwii hore dadku way maqleen bal in yaroo cusub qor marka waxaan qabyaaladii gumaad iyo naf la gooyay mooyee miyay gogol ammaan iyo guri nabada leedahay geeri waan ku aragnay miyay gaabka nololeed gacan saar la leedahay fidmo wala ku guuro ku gabraarta mooyee qofay garab u noqoto lib ka gaadhay maqasheen kuma geedka reernimo weli midha ka goosto gudublii habeen laday
kursinimay u goyso guudka saartay aragne muxuu galay muxuu guday ma gufeeyey baahida geygana muxuu taray gefka inay u hooy tahay gudintii sharkana tahay balaayada u guri tahay gaadiidkii jahliga tahay barta lagu goblamo iyo geerida u ehel tahay dhufays tuugu gala tahay barbaar gowracee tahay gaashaanka dhagartee ninka xuni gaboodsado ama tahay magaratadu dabka ay ku gurantee gubatee ku leedee gankeed kaga habsaantee ku sidano gosheenna horta mayla garateen waan sii wadi karaa garashada maxbuuska ah maanta iyo shalay guran berritana mugdigu galay teeda horey gaadhaye hadhaadigaa gargaar iyo gurmad culus u baahane guushayda maqaneey anigaa isgabayoo hanyaridii u goysee haddii aan isgarabsado waxaan dhalin lahaa gool waa guuleed qaasaali ayaa ereygaa laga qoray 3 waa mugdi 3 waa maradhaamo 3 baa ka macaan buuri cadceed habeen waa mugdi dayax waa maradhaamo cadceed baa ka macaan wuxuu indhoolase waa umaso waxba uguma fila buuri wuxuu abaari waa mugdi cawsta waa maradhaamo doog baa ka macaan caydna waa umasowday buuri cayd waxba uguma filayada ninkaan xoolaba u daaqayn abaar dooga iyo garanaysa waxba uguma fila buuri wuxuu yiri colaadi waa mugdi colaadi waa mugdi erga waa maradhaamo nabad baa ka macaan ninkiisa dagaalka lagu dilay isaga waxba uguma fila oo nabada la qaatay de kaba dhimay buuri calaaya kulli xaal aan soo ururiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaalida lagu eedeeyo inay dib u dhigtay qabyaaladu waa ka koow cilada ugu weyn ee anigu aan wax saarayana waxa weeye qabyaaladu ama tollimadu markay nolosheedii miyiga joogtay nolol saxa oo dhisan oo xeerar leh oo qawaanin laba yahay ceeb waxay dhacday markay magaalo loo soo raray ee siyaasad lagu dabaqay ee qalinka loo qaatay ee PhD iyo wax kale loo soo qaatay bahashi markay waalatay ee ciidankeeda la saari waayay waa markaa noloshii laakiin haddii noloshii noo kala soconaato miyigiisii yahay magaalana magaalo tahay qofka aqoontiisa iyo lagu qiimeeyo iyo waxtarkiisa macnaheedu yeelan lahay laakiin markii imika waxaad maqlaysaa bal hadda eeg cajaa'ibka waxa lagu leeyahay golaha baarlamaanka saami qaybsi waxa loo jeegeela la soo qaado ee dhaca ah ayaa loo jeedaa saami qaybsigiisa war saamiga yagi deemay baarlamaanka iyo guurtii golayaashiba waa geel dhaca mas'ala leeyahay saami qaybsi hatta ereyada la adeegsanayo marka intay bahashu san isugu barxan tahay ee qabyaaladii miyigu ay magaalada soo gashay joogto ee xafiisyadii iyo dawladii iyo siyaasadii iyo madaxdii iyo xisbiyadii wixii oo dhan ku jirto xalkeeduna waa dheeraanaya meel aynu u soconaynaana ma jirto hadaynan amaantiyo dilka iyo daynin kala sanadka dabadan ka joognaa sharciga daaqadaylahe dambarkeedu waa jahannama iyo dobobkinaareemede duliyo hoosba waan ku dhigaya waa dixdagaxemede anunbaa damqanaya dhaguhu uma dawramane dadkaahadlayaabaan lahayn duxeeyo imamane bal inay dabobtaaya aqliga dooni laga saaray waxii hore usoo daajaday bay degayeenaysaa waxaanu ku sugannahay magaalada Ceelaf Weyn oo maanta lagu soo gabagabeynayo rasmi ahaan shirkii nabadaynta beelaha colaadu ay u dhaxaysay muddada dheer ee ku siman ilaa 4 sanadood magaca walaal aniga amuun baa leedahay amuun maxamuud ha adigana abira jacboqole amina jaamac boqolle labadiina maxay isku tiin ilmaabtibaana ha gartay bal ka warrama muddadii colaadu ay jirtay siday nolosha u saamaysay gaar ahaan qoyskiina waxay keentay in la kala fogaado oo la is arki waayo waxa jirtay ama dhawaytolo nabadda maxaan ku raahdaa odayaashu soo qabteen in dad aan muddo badan is arkin ay is arkeen kadibna isku boholiyeen isku dhigeen marka wallahi colaadu saameyn badan bay keentay dadku way kala fogeysay rixinkii bay kala fogeysay ummad walaalaha afka wax ku wada goosta ayaa meeshii dagaal ba ka dhacay marka dadku way ciloobeen marka wallahi aad baan uga xunay waxa meesha ka socda meesha waliba waxa colaadu aad ku saameysay waa dhalinyarada degmada ku nool ee wax bartay
maxaan ku rahdaa iskuuladii dhalinyar isku magaalo dhan oo qurux badan oo maxaan ku rahdaa dadku ilka ku kala goostaan ayaanu anagu ogeyn waxaanu aragnay dadkii oo aan qofna qof salaamin qofkii walaalka ahaa abtiga ruma dhalay baa luuq kale ka laabay markay istiraad salaan was oranayaan bay mission ku wada xaqu laaqada marka waxaan wallahi waxaan gaar ahaan dhalinyaradu u saameeyay baa tiri hadda taa ka hadasho sidoo u saameeyay dhalinyarada macnaha dhalinyartu waxay ahaayeen dad isku dhow aan meel kala tagin oo meel wada fadhiisto oo meel wax ku wada cuno oo goob wax ku wada barta laakiin seena colaadii waxay keentay in maxaan ku rahdaa la kala cararo oo qof luuq kale ka duusoo yiraahdo kanigada meel kale mission buu ii wadaa ama waxbuu farta ku safiiqayay marka walaa waan ka xunnahay colaadaasi dhibtay geysatay dadka ehelka habay kala fogeysay waliba haddar waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada degmada Ceelfey horta nabadu waxay ka soo dhimsantaa beeska dumarka iyo ciyaalka dumarka iyo ciyaalku haday nabad maaragtay ay qaataan nabad way fiicnaanaysaa Ceelfey waxbarashadii bay ka hadheen qayrkood bay ka hadheen asaagood bay ka hadheen waxba ma bartaan gidaarada fadhiyaan koolay ku wada dhaqaan marka aan waxaan u sheegayaa dhalinyarta degmada Ceelfey inay waxbarashada adkeeyaan oo ay maxaan ku rahdaa isku soo dhawaadaan aanay kala tagin waa dad ehel waligood forever hatta haday maartay colaadaas joogsan weydo ma kala hadhayaan meel ku kala tagaan ma joogaan marka waxaan leenahay nabadda hal adkeeyo waa yeelka qaasha dhalinyarada maanta nabadda alxamdulillah ilaahay noo soo xiray waa wax ilaahay loogu shukr noqon marka waxaan leenahay nabadda halka laga adkeeyo waa tahay adiguna cabsi salaamad mahadsantahay waxaan nahay dhalinyarada deegaanka Ceelfey colaadda Ceelfey ka dhacday waxay soconaysay muddo wasiirada arrimaha guud ay shan wasiir soo maray laba xukuumadood ana qoys ahaan qabiil ahaan degmo ahaan heer Ceelfey ahaan saameyn guud bay nagu yeelatay dhalinyarada saameyn bay ku yeelatay iskuulada waxa ka imtixaanka waxa u fadhiistay 3 3 baa imtixaanka shahaadiga foonfori la eedu fadhiistay degmada Ceelfey marka hore wax ay 3 qof oo kaliya miya 3 arday u fadhiistay arday inay wax ka dhaceeyay kala Allahu yaclam taas waxay ku tusaysaa rajada ay colaadu keentay waad aragtaa maalin walba la dhaaran jiray cuqaashu kutub bay ku dhaaran jirtay balse maanta jifi ahaan iyo guud ahaan baa loo bilaabay dagaalka halkan ka dhacay bacba sababtay bacda inankii wax ku dilay adeerkii waa maanta wada fadhiya wax isfahan dhow bay keenaysaa marka hore guudka laga salaaxi jiray waa la kala yaaci jiray baad rajo fiican baa muuqata inkastoo magaalada Ceelfey Cabdisalaam aragtaa Ceelfey magaalo cad baa loo oran jiray maanta gaadhiga soo galana waad arkay ka baxana waad arkay markii hore ma arki jiray colaadu wataa nabaduna wataa ay maanta wada joogan ee ay dhex joogan ay salaamayaan mushkiladda ay colaadu keentay Cabdisalaam waxa kamid ah laba imaabtiya maalintii ay colaadu bilaamatay ee shidsan ka soo wareegtay deegaanka Ceelfey wada joogay oo ay arag baa maanta kan isku arkay salaamay magaalada markaad leedahay dagaalku bacbu ka dhashay maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa dagaalku ka bilaabay markii hore ee reebigu isku laayeen bac meel lagu qodayo ayay isku laayeen oo biyo lagu shubay waa ta maanta dhowr boqol habar lamaana bay sababtay bacdi aqli xubay aqoon xuba weeye inkastoo ay qornaytooda inay sidaa u dhintaan colaadu Cabdisalaam waxay leedahay dhibaato badan nabaduna waxay leedahay nolol iyo qurxoon iyo ubax soo baxaya waxaan maanta ku rajo weynaa in Ceelfey nabad ay tahay ay saanu sii ahaan doonto insha Allah aad iyo وهاجاجintaasna waxa ku dhan barnaamijkii labaad ee kamida barnaamijyada taxanaha ee aanu ku eegayno dhibaatooyinka waqtigan xaadirka ah ay qabyaaladu ku hayso bulshada reer Somaliland iyo siyaabaha lagaga bixi karo dugsi mare qabyaaladii waxay duuliso yamae ninka duday digorgiyo waxyiga diintiga qarawiyay dugsi mare qabyaaladii waxay duuliso yamae hadaynan amaantiyo dilka iyo dayninka la sanadka dabadanka joognaa sharciga daaqadaylahae dambarkeedu waa jahannama iyo dobobkinaareemede duliyo hoosba waan gudhigaya waa dixdagaxemede anubaa damqanaya dhaguhu uma dawlamane dadkaahadayabaan lahayn duxeeyo imamane bal inay dalbobtaaya aqliga dooni laga saaray waxii hore usoo darajadaybay degaysa dalbobtaaya aqliga dooni laga saaray waxay hore usoo darajadaybay degaysanaysaa dirdirlaysulaayiyo intaan weerar daba joogno